daawadayaal iyo dhageystayaal waxaynu hore uga soo sheekeynay shan madaxweyne oo dalka soo maamulay. waxaan caawa halkan idinku hayaa madaxweynihii lixaad taariikhdiisii oo aan soo koobay aniguna waliba barqiye waana qaybtii koowaad ee aynu duubi doono. madaxweyne Cabdilaahi Yuusuf Axmed waxa uu ku dhashay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug 15 Diisembar 1934. waxbarashadiisii dugsiga dhexe iyo sare waxa uu ku dhamaystay Soomaaliya, wuxuuna galay kulliyadda sharciga ee ciidamada. markaas kadib ayaa 2 sano oo waxbarasho ah loogu diray Talyaaniga sanadkii 1954 ilaa 1956. sanadkii 1957 ayaa loo magacaabay ku-xigeenka taliyaha booliiska ee gobolka Banaadir, isagoo oo jagadaasi hayay muddo sanad ah. jagadiisii labaad waxaa loo magacaabay 1958 isagoo oo noqday taliya qaybeedka booliiska ee gobolada Jubbada Sare iyo Jubbada Hoose. 1960 bilowgiisii ayaa mar kale waxbarasho military loogu diray Talyaaniga. markii uu Talyaaniga ka soo laabtay ayuu qabtay jagadii ugu horeysay ee militariga, isagoo oo noqday taliyaha booliiska militariga ee qaybta 26aad, fadhigeeduna ahaa gobolada waqooyi ee Soomaaliya. sanadkii 1956 ayaa loo dillaacsiiyay darajada gaashaan la dhexe. waxaa isla markiiba uu maamulkii dhexe ee wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya la soco qaybaha dambe oo aan soo dayn doono haddii Ilaahay yiraahdo insha Allah.